bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dadkana dhageysanayo halkan waa dayax qodobadan idin haynina caawa waxa uu waaweynaa maamulka Puntland oo beeniyay dagaal ka dhacay deegaanka Boocame ee gobolka Sool xarakada al-shabaab iyo Daesh oo dagaal mar kale uu ku dhexmaray qaybo kamid ah buurleyda Puntland maamulka koonfur galbeed oo ka warbixiyay magacaabista golaha wasiirada uu qorsheynayo madaxweynaha koonfur galbeed in dhawaan uu magacaabo Mareykanka oo sheegay in duqeymo ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Hiiraan faahfaahin ka soo baxaya dagaal mar kale ka qarxay qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada booliiska magaalada Beledweyne howlgal caawa ka wada magaaladaasi madaxweynaha maamulka Galmudug oo sharaxaad ka bixiyay heshiiska hordhaca ee dowladda dhexe iyo maamulka Galmudug ay ku gaareen Garowe ciidamo Kenyan oo la soo dhaway xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya akhbaaraadka caalamka idaacada dayax caawaydii ay soo dhageysteen waxa uu waaweynaa militariga wadanka Suudaan oo sheegay in ay ka go'an tahay sugidda amniga sheegayna inaysan u dulqaadan doonin burburinta dalka Suudaan iyo ciidamada xuutiyiinta dalka Yemen oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan dowladda wadankaasi Yemen